bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacana wanaagsan daawadayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka waa 23 bisha oktoobar sanadka 2022 barnaamijkeena qaybtan daawadayaal qodobada aynu diradda ku saari doonno haddii allaha awoodda leh uu raali ka noqdo waxaa ka mid a dhacdo weyn oo la filayo in ay ka dhacdo khirzoon xilli halkaasi dagaallo xoogan ay ka soconayaan iiraan oo ka jawaabtay eedeymaha ah in ruushka siisay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn duqeymaha culus ee ruushka uu wado iyo xogo kale ee mar kale daawadayaal soo dhowaada daawada fadlan haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir janalka subscribe inoo saar furagan baleelka si aad u noqoto daawadaheena ugu horeeya mahadsanid barnaamijkeena ayaynu gudagelaynaa maamulka ruushka taabacsan ee ku sugan khirzoon ee koonfurta Ukraine ayaa waxa uu ugu baaqay dhammaan dadka rayidka ahi inay si degdeg ah uga baxaan aagaasi xilli ay sii kordhayaan dagaalada halka Iiraanna ay cambaareysay dalabaadka Yurub ee ah in la baaro eedeymaha Tehran ee ku saabsan in Ruushka ay siisay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee horumarsan qoraal ka soo baxay maamulka gobolka ee Moscow ku dartay federaalka Ruushka toddobaadyo ka hor ayaa lagu sheegay dhammaan dadka rayidka ah ee degan Khirzoon waa inay si degdeg ah uga baxaan magaalada iyada oo la tixraacayo xaaladda kacsan oo ka jirta jiidda hore ee dagaalka iyo khatarta sii kordhaysa ee duqeymaha culus Khirzoon waxay ahayd magaaladii ugu horeysay ee weyn ee gacanta u gashay ciidamada Moscow intii lagu jiray dagaalka 9 bilood socda dib u soo celinteedana waxa ay noqonaysaa mid ka mid ah natiijooyinkii ugu muhiimsanaa ee ka soo baxay weerarka rogaal celiska ah ee Ukraine mar sii horeysay Ruushka ayaa sheegay in ciidamadooda ay ka hortageen isku day Ukraine ay ku doonayeen inay gudaha ugu galaan difaacooda gobolka Khirzoon iyadoo daadgureynta ay ka bilaabatay daanta bidix ee webiga Dnepro ee xadka Khirzoon tan iyo Arbacadii la soo dhaafay wasaaradda difaaca Ruushka ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay ayaa waxay ku tiri weerarada oo dhan waa la fashiliyay waxaana cadowga lagu celiyay goobihii ay markii hore ka yimaadeen wasaaradda ayaa waxay intaasi ku dartay in Ukraine ay weerarkeeda ku qaaday deegaanada kale ah Biatykhadki, Zokhanov, Zablokivka iyo sidoo kale Bezvoden oo dhinaca galbeed ee webiga Dnepro ah warbaahinta Ruushka ayaa sidoo kale baahisay sawiro ay ku sheegeen inay ahaayeen qaabkii looga hortagay weerar ay Ukraine ku qaaday aagga Khirzoon waxa ay sheegtay in ciidamada Ruushka ay burburiyeen gawaari laga leeyahay dalka Ukraine kuwaas oo doonaya inay gudaha u galaan difaacyada ciidamada Ruushka ee deegaanka dhanka kale wasaaradda difaaca ee Britain ayaa sheegtay in Ruushka uu dhameystiray dhismaha buundada kumeel gaarka ah ee ka gudbaysa webiga Dnepro ee dalka Ukraine si ay sahay ugu geyso ciidamadeeda ka gudubka webiga ayaa lafdhabar u ah saadka ciidamada Ruushka ee ku sugan magaalada la haysto ee Khirzoon ee koonfurta Ukraine warbaahinta Ruushka ayaa sidoo kale daabacday sawiro ay ku sheegeen in lagu bartilmaameedsanayay bas ay saarnaayeen askar Ukraine dhanka koonfur galbeed ee Donetsk afayeen u hadlay wasaaradda laguna magacaabo Igor Konashenkov ayaa sheegay in ciidamada cirka ee Ruushka ay burburiyeen madaxyada gantaalada lidka maraakiibta ee Neptune ee Ukraine xilli ay bartilmaameedsadeen tababaro ciidan oo ku yaala magaalada Kharkiv difaaca gantaalada Ruushka dhinaca kale taliska ciidanka cirka ee dalka Ukraine ayaa sheegay in ay 18 ka mid ah 33 gantaal ku soo rideen dhulka Ukraine subaxnimadii Sabtida waxay intaasi ku dareen in Ruushka uu weerar ballaaran ku qaaday dhammaan dhulalka Ukraine kaasoo bilowday abaarihii 7 aroornimo ee shalay gelinkii hore iyadoo ciidamada Ruushka ay weerarka qayb ka mid ah sidoo kale ka soo qaadeen maraakiib dagaal oo ku sugan badda madow ayna ku rideen 16 gantaal oo nooca Kaliberka ah magaalada Donetsk ee waqooyi barina maamulka Ruushka taageersan ayaa sheegay in duqeynta Ukraine ay sababtay dhimasho iyo dhaawac dad rayid ah halka Ruushka uu burburiyay bas ay la socdeen askar Ukraine ah meel u dhow magaalada Igorivka ee dhinaca Uglader ee koonfur galbeed gobolka dhanka kalena magaalada caasimadda ah ee Kiev ayaa waxaa la arkayay gantaalada Ruushka oo ay iska caabiyeen difaaca cirka ee Ukraine waxaana duqa magaaladaasi uu ugu baaqay dadka deegaanka inay taxadiraan oo ay ku ekaadaan meelaha gabaadka ah duqa magaalada Lutsk ayaa sheegay in Ruushka uu bartilmaameedsaday dhowr goobood oo galbeedka Kiev ka tirsan gaar ahaan halka lagu magacaabo Rivne Lutsk iyo sidoo kale Khmelnytskyi iyadoo gantaaladii lagu duqeeyayna ay sababtay koronto la'aan nidaamyada difaaca hawada wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmytro Kuleba ayaa ugu baaqay caasimadaha xulafada la ah Kiev inay dardar geliyaan bixinta nidaamka difaaca hawada oo aan xitaa wax yar dib loo dhigin sida uu hadalka u dhigay Dmytro Kuleba ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay Sabtidii
in duqeymaha gantaalada ee ruushku ay la beegsadeen kaabayaasha muhiimka ah ee rayidka ah isaga oo ku nuxnuxsaday in difaaca cirka ay qabteen qayb ka mid a gantaalada xilli ay kuwa kalena ku dhaceen goobihii lala bartilmaameedsaday. wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine waxa uu ruushka ku eedeeyay in uu xasuuq u geystay dadka reer Ukraine isaga oo bartilmaameedsaday kaabayaasha muhiimka u ah dadka rayidka. dhankeeda shirkadda korontada ee Ukraine ayaa shaacisay in duqeyntii shalayto ay geysatay khasaare la mid ah ama ka badan kii la diiwaan geliyay weeraradii 10kii iyo sidoo kale 12kii bishan dhacay. bayaan ay soo saartay shirkadda ayaa ku sheegtay in kaabayaasha muhiimka ah lagu beegsaday galbeedka dalka. waxa ay tilmaantay in kooxdeedu ay ku howlan yihiin sidii ay u hagaajin lahaayeen burburka iyadoo la xaqiijinayo in dib u habeen korontadu ay ka bilaabato in ka badan 10 gobol oo ay ku jirto caasimadda Kiev. gobolka Belgorod ee dalka Ruushka, gudoomiyaha gobolka xadka uu la wadaago Ukraine Gladkov ayaa sheegay in 2 qof ay ku dhinteen 9 kalena ay ku dhaawacmeen, taasoo ka dhalatay duqeymo ka soo cusboonaaday Ukraine oo ka dhacay magaalada xuduudka ku taala ee Jibkino. duqeynta Ukraine sida ay sheegtay warbaahinta Ruushka waxay sababtay in uu gubto baqaar ganacsi, waxaana waxyeelo soo gaartay tiro xarumo rayid ah oo ku yaala magaaladaas oo qiyaastii 4 kiiloomitir u jirta xadka uu la wadaago gobolka Kharkiv ee wadanka Ukraine. dhanka kalena haddii aynu eegno wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa sheegtay inay si kulul u cambaareysay dalabka Faransiiska, Jarmalka iyo Ingiriiska ee ku aadan in qaramada midoobay ay baaritaan ku sameeyaan eedeymaha ah in Ruushka uu adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran ay ku weerartay Ukraine. Nasir Kanani oo ah afhayeenka wasaaradda ayaa sheegay in casimaadda ay fidiyeen Jimcihii ay tahay mid qaldan oo aan sal iyo raad toona lahayn, waxaana uu sheegay in la diidayo oo si kulul loo cambaareynaya arrinkaasi. dhankiisana madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi ayaa hadal aan fiicneen u adeegsaday iibka militariga Iran guud ahaan mar uu khudbad ka jeedinayay Sabtidii, isaga oo sheegay in dalka hadda uu yahay wadan la og yahay in uu hub dhoofin karo. waxa uu sheegay in safaradii ugu dambeeyay ee uu dalka dibadiisa ku tagay oo ay ka mid tahay New York oo uu kaga qayb galay kulamadii golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay. waxa uu yiri waxay naga codsadeen inaan iibino agabka ciidamada, waxaana weydiinay sababta. dalal kale oo badan ayaa jira, waxayna dhaheen sababtoo ah hubkiinu ayaa wanaagsan. Ibrahim Raisi ma uusan sheegin nooca hubka ee la weydiistay in uu iibiyo iyo sidoo kale cidda la soo xiriirtay. waxa uu sheegay in taasi ay ka caraysiisay cadowga Iran oo aan doonaynin in aan horumar sameyno iyaga oo ka baqanaya in ay ku soo duulaan suuqyada. wuxuuna ku qeyliyay cadowga ha xanaaqo oo ha dhinto cara darteed. saraakiisha Mareykanka ayaa dhawaan shaaca ka qaaday in Ruushka uu helay diyaaradaha Iran Muhajir 6 iyo sidoo kale Shaheed 129 iyo Shaheed 191 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee UAVs bishii Agost ee la soo dhaafay, taasoo Tehran ay si joogto ah u beenisay. daawad aragtidaada fadlan qaybta hoose ee commentiga inoogu reeb, muuqaalkan noo la garay noona sii share garay si dad badan u gaara. mahadsanid. barnaamijkeennan falanqaynta xogta caalamka waa naga intaas. barnaamijka mid ka xigeentan ku kulmi doona nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.